السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقالية الدنيا دعالة ذا ميل البدك جوكتان وعيد السلامي. برت أنا قد دعونا يسام وبران كارلوس أنا جوا أحمد نور. أصحابي برنامج كان برنامج هذي كلوا كدوية هاي. برنامج كان وحنكاي هذينا وحير عن ثق فلانقيننا. برنامج كي معلومة عن السعودية كان عي عرقاي مريكنكا. ninka madowga ahaa ee dhibaatada loo geystay ee lagu dilay Mareykanka iyo Soomaalida Mareykanka reaction-ka ka bixiyeen iyo qaabka ay u arkeen. Waraysi oo rabo markii aan isla aragno waxa waaye Soomaalida ku dhaqan Mareykanka, Soomaalida Yurubta qaarkood ku dhaqan sida Ingiriiska oo kaleeto, wadankan aan ku noolahay oo kaleeto, Holland oo kaleeto, magaaladeeda waliba qaasatan Rotterdam. أيضا sidoo kale mudaharaadyo ka dhacay oo looga soo horjeedo midab kala sooca iyo qaabka booliska oo la dhaqmeen ninka madowga ah. Soomaali badan waxaan arkay ka dhidhinaysa barnaamijkaas oo isku soo baxday. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa tiisa daryeela tu kale ku daro. Marka annaga aan teena daryeelno oo annaga Soomaali ahaan ah cunsuriyadda iyo dhibaatada aan ku hayno walaalaheen nala dhashay ee nala Soomaaliga ah ee nagu dhiigga ah marka annaga aan joojino aan ka mudaharaadno oo aan ka qaylino ayaa waxa macnaha aan u gudbi karnaa inaan macnaha Black American iyo dad kale ta Afrikaan inaan caawino oo aan garab istaagno. Dhibaatada waxay ka jirtaa dalkeena ka jirtaa 2018 nin maskiina oo iska ganacsanay geerish uu ka ganacsanay ayaa gabar wiil uu adeer u yahay ayaa wuxuu jeclaaday gabartii wiilka jeclaaday dartiis ayaa ninka maskiinka ahaa haddaad wada xasuusataan ninka magaciisa waxaa la yiraahdaa Axmed Dowlo sawirkiisana waa kana ila arka walaalkiin baa gubteen qof islaam oo idin la mid ah ayaa ka faanaysaan oo wada ka faantaa waa faan jirtade aad tab qabataysan maantaan garooshiyeed ku haysan wali war xaqay qabtay madaxdii geeska Afrika nin madaxweynaha oo Soomaali ku hadlaya oo u tacsiyay ma maqalta waxa maanta annaga sharaf dhacno ah annagoo magac Soomaalinimo sheeganayno dad badan oo Soomaali xataa in la waayay madaxdii wadanka baarlamaanka inay u hadli waayeen dhibaatooyinka lagu soo binaayay dadkaas. annagu waxaanu xaq u leenahay haddaan nahay dhalinyarada wadanka inaan ka hadalno dhibaatooyinka wadanka ka jiro. madowga waan isla nahay cid diidaysa malan annagu Afrikaan baanu nahay madow baanu nahay laakiin annagayba teena haysataaba Soomaali ah ayaa wuxuu Mareykanku ku dilay gabar cadaan ah wuxuuna ku dilay si kama uu ku dilay. I saw Mr. Ushek dying on the ground. I felt horror. Seeing her there, I knew in an instant that I was wrong. The depth of my error has only increased from that moment on. Working to save her life and watching her slip away is a feeling I can't explain. waxaana loogu xukumay 12 sano iyo bar ayaa loo gariyay gurada maantana xabsiga jeelku ka jira ilaa hadeertan aniga ma arkin qof madow oo arintaas ka dhiidhiyay qof madow oo qalad ninkan si kam uu wax ku dilay maxkamadda go'aankay gaartay uu qaldan yahay ama ka mudaharaaday. maxay tahay sababta annaga Soomaalida ah aan u mudaharaadayno aan si fiican isku fahanno midda meesha taalo waxay tahay annagu Soomaali ahaan annagayba teenin haysataaba cunsurinimo haddii la dhaho midab kala saar haddii la dhaho kala fuquuq haddii la dhaho annagaaba number 1 aba annaga ayaa waxaa u baahan in aan annaga gudaheena maanta waxaa u baahan inaan isku mudaharaadno
annaga gudaheena maanta waxaa u baahan in aan wacyigelin suubino, shacabkii la hadalno, baarlamaankeeni ka codsano, maanta dowladda siay ku dhaqmayso in wax laga bedelo. Sharciga maanta annaga dowlad ahaan Soomaali haddaan nahay aan ku shaqeynayno oon dadka la hortaaganahay waxaa weeye 4.5 alla 4.5 nin dhan oo kula xaniinyo ah, isku dhiig aad tihiin, kaa xoog yareen, kaa shaqo badan, kaa karti badan, kaa aqoon badan inaa 0.5 ku midaashid adna afara ahay adhaad. anaa cunsuriyadaas ma arkaan miyaa Soomaalidu? cunsuriyadda intaa la eg Soomaalidu ma arkaan miyaa? Axmed Dowlo familkiisii cabsi ay ka qabaan dadkii aabahood dilay inuu ayaga soo weeraro dartood ayaa waxaa maqal igu ah inay Muqdisho meeshii ay ku noolaayeen ay uga soo carareen, ay maanta ku nool yihiin xeryaha qaxootiga ayagoona waxba haysanin. Shalay aabba u shaqaysanaya, aabbahood geerashka uu ku shaqaynayay intii loogu soo galay ayaa waran lagu dhuftay. intaas laguma joojin oo waa la gubay. ma arkin qof bini aadan ah oo ka mudaharaadayo shacab weynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka ayagoo mudaharaad suubinaya oo dhahaya dhibaatadaas Muqdisho ka dhacday waa ka xunaay. ma arkin. sidoo kaleeto kuwa Yurub ku nool ayagoo wax ka mudaharaaday ama ka hadlaya arrimaha dhibaatada ah ee dalkeeni ka dhacay ma arag. ma garanaya marka annagu ma waxaan u nugulnahay inaan dadka shisheeya aan garab istaagno, aan caawino, aan mudaharaadyo la suubino. annagay taynina haysataa. waay annaga aan isku garab istaagi la-nahay, waay annaga aan mudaharaadyo u suubin la-nahay, waay aan oga hadli la-nahay dhibaatada dalkeena ka jirto. barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij aan anigu jeclaystay inaan ka hadlo. haddii adiga aad ka heshay barnaamijkan fikradaada waa ila soo wadaagi kartaa. aada ayaa umahadsantihiin halka aad naga daawanaysaan. waa janaalka Burhaan Carlos, anigu waa Axmed Nuur. asxaabay nooli kulanti dambe, is arag maqal dambe. bye.